dhismahan ballaaran ee shirkadda dahabshiil group ay ku wareejisay jaamacadda hargeysa waxaa ka soo qayb galay wareejintaasi wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan gudoomiyaha jaamacadda hargeysa iyo mas'uuliyiinta sare ee shirkadda dahabshiil group Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo CEO-ga dhinaca xawaaladaha iyo sarifka lacagaha ee shirkadaasi dahabshiil ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay muhiimadda ay dhismayaashani u leeyihiin jaamacadda hargeysa anigoo ku hadlaya magaca shirkadaha dahabshiil group waxa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka hoolkan weyn oo aan u dhisnay jaamacadda hargeysa baahi ka timid markii ardaydii diganaysay ay ku yaraadeen maqsinadii oo jaamacaddu naga codsatay markaa inaan u dhisno annagoo taa fulinayna codsigaa ka duulayna ayaan hoolkan ballaaran samaynay aad iyo aad bay farxad noogu tahay sharaf bay u tahay shirkadda dahabshiil inay mar walba ka qayb qaadato meelaha danta guud ee bulshada wax u qabanaysa si ay aqoonta dhallinyaradeenna iyo aqoonta dalkeenaba u dhismo ma aha markii koowaad ee arrintan oo kale ay qabato boorame berbera burco arigaabo inta baanu ka fulinay gudoomiyaha jaamacadda hargeysa ayaa isna waxa uu ka hadlay wareejintaasi iyo kala wareegistaasi shirkadda dahabshiil group ay kala wareegeen dhismayaasha balbalaaran uu noo dhisay dahabshiil oo aad u wanaagsan oo wax ka qaban doonta baahida looga qabo jaamacadda xagga space-ka sidaad ogtihiin ba after shift baanu leenahay 7 aroornimo ka bilaabmay ilaa 10 habeenimo tanna wax weyn bay noo qaban doontaa waa 4 qol oo aad u qurux badan oo aad u wanaagsan waxaanu leenahay dahabshiil aad baa ugu mahadsantihiin waananu idinka filananaa in badan wax badan waa qabateen wax badan oo kalena waanu idinka filan waa ku mahadsantihiin wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna hadal dheer halkaasi ka soo jeedisay ayaa ka warantay kaalinta ay ku leedahay shirkadda dahabshiil dhinaca waxbarashada iyadoo sheegtay in muhiimad weyn ay dhismayaashan u leeyihiin jaamacadda hargeysa oo muddo badan sugayay arrimahan oo kale in loo qabto meelaha caamka ay dadku isticmaalaan dhakhtarkan ku arkay dhakhtarada iyagoo wax ka qabanaya iskuulada waxbarashada jaamacadaha meelo badan ayuu dahabshiil group runtii wax ka qabtaa runtii waana in lagu daydaa waxa weeyaan walow ay imika dad badan oo baayac mushtari ay u soo jeedsadeen inay ku daraan baayac mushtarigooga inay wax ka qabtaan arrimaha caamka ee bulshadu ay wadaagaysana laakiin dahabshiil runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa investmentka uu geliyo dalka isagu shakhsiyan markuu xitaa meelaha uu dhisanayo waxaad arkaysaa wax tayaale oo lacag badan gashay waxaana qofku citizen wuxuu ku noqdaa markuu u huru aamino meesha inuu geliyo dhaqaale inta la eeg wax kalaba maaha wax la yado qofkaas waa muwaadinimadu waxa weeyaan inaad wadankaaga aaminto oo wax gashato oo lacag u dhiganta wadaninimadaada aad geliso dhismayaashan ayaa ka kooban 4 galaas oo mid waliba dhowr boqol oo arday uu qaadayo iyo hal xafiis waana mashruucii afraad ee sidan u ballaaran shirkadda dahabshiil group ee ka hirgelisay jaamacadda hargeysa iyadoo ku horreeyay dhismo hore ay ugu dhistay dhinaca maamulka iyo dhismayaal kale oo ay halkaasi hore uga hirgelisay